بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين mar kale soo dhawaada waa walaalkiin axmed jowhar iyo jowhari media insha allah. Markan waxaan ku fiirinaynaa macluumaad cusub oo hadda soo dhacaya. Runtii yacni qaza subxaan allah dhibaatooyinka ka dhacaya. Askartii ciidankii maaragtay israa'iil oo markii la yidhi dadka ha loo qaybiyo raashin, la tilmaamayo raashin aan sax ahayn, in ay faafinayaan. Qodobka labaad oo isaguna runtii u baahan in la sheego ayaa ah UN-ta iyo maxaan ku dhahday qolada NTP, in kulan ay lahaayeen 2 cisho ka hor. Israa'iiliyiintu maadaama aynan signature ahaynin saxiixin inay iyaguna ka qayb galeen. Waxaad dareemi kartiin sidaas la eg in Pakistan ay ka dhaceen maxaan ku dhahday fadayanaad ama floodings, daadad tiro badan, roobab xooggan intay ka di'een, daadad tiro badan ay ka dhaceen oo dad badan ay runtii ay saamaysay xoolo iyo bini aadan iyo dhulba. Ilaahay subxaana wa tacaala ha u sahlo, ha u fudaydiyo. Waxaa kale oo runtii xanuun badan in iyadana geeska Afrika gaar ahaan maxaan ku dhahaa meelo badan oo ka mida dhulkeenna dhibaato ay ka jirto. Nabaduna maaragtay ay xoogaa ayna wanaagsanayn. Marka waa loo baahan yahay dadkeena in nabadda dhulkeena labada in laga shaqeeyo oo nabadda dib loogu soo dabaalo. Kenya saad arkayseen iyadana maaragtay kacdoono iyo maaragtay ayaa ka jira. Nin wasiir ah ayaa wuxuu dhahay dadka mudaharaadaya haddii ay askarta soo aadaan ha la xabadeeyo. Kabacdina hadalka markuu ku dhawaaqay askartiina maxaan ku dhahday caqligooda may isticmaalin xabaday, iyaguna ay isticmaaleen. Dad dhowr ah ayaa ku dhintay, in badanna way ku dhaawacantay. Marka caalamku sibuu u socdaa, ilaahay khayr ha idin siiyo, aad ha loogu fiirsado. Trump oo dhinaca kale reer Yurub culays badan saaray si ay uga iibsadaan hub tiro badan. Suuqa baarwaaqa sooranka la yidhaahdo ama maaragtay tradeka, businesska. Spain ayaa shirkii NATO, Spain madaxweynihii ra-iisul wasaarihii Spain ayaa yidhi adeer waxa aad sheegayso annagu 5%kii waxaan aad sheegayso maxaan ku dhahday dalkaygu kama bixi karo, mana samayn karno, GDP-ga hal sare ha loo qaado. Dhinaca kale wuxuu dhahay ha okay, haddaanad kan ogolayn dhinac kale aan maaragtay aan kaaga dallici doonaa, kugu siyaadin doonaa. Ja waxaa la bilaabay in marka ninkii lagu kiciyay shacabka. Arrintan si gaara in loo isdul taago ayay u baahnaan doontaa. Waxay xasuusinaysaa buuggii aan mar walba idiin sheegi jiray, ninkii John Perkins, raadiya buuggiisaas, A Confession of an Economical Hitman. Wax badan buu maaragtay ku sheegay in lagaa dhex shaqaysto loogu dhex jiro. Marka Yurub sida uu ula dhaqmayo aad iyo aad bay maaragtay nasiib darro uga jirtaa. Madaxda Yurub maanta ha kii Starmer, Macron, ninka Jarmalka. Waxaad moodaa in uu Yurub Trump uu rabo in uu jeebka gashado. Wuxuu Trump iloobayaa in uu maaragtay 4 sano keliya uu joogay, kabacdina uu ka dhaqaaqay. Laakiin maaha meesha la socdaya shakhsi ma aha, waa system. Waa inaan kala saarno arrintaa. Trump wuu imanuu tegi, laakiin waxaa imaani mid kale ama isagii ka daran ama ka yara duwan, laakiin systemka halkan ay uga jirta dee oo aaminsan systemka Americanka. Waa jeclaan lahaa in aad fiirisaan buuggii maalinta dhow aan idiin sheegay, ninka la yidhaahdo Nucman Chomsky uu qoray ma hegemony ba mise waa survival. Uu ku tilmaamayo sida Maraykanku oo u rabo caalamka dominance, in uu dominate gareeyo, wax kastaba u qabsado. Dhinaca kale waxaad arkayseen shalay iyo maantaba in ay Canada cabaadayso. ra-iisul wasaaraha cusub ee Canada iyo Trump in ay madaxa isdareen durbaba, isla markaana
pressure badan ninkaa la saaray, saaritaanka pressureka la saaray laba dhinac. Suuqii iyo tradekii iyo maxaan ku dhahday heshiisyadii in cidhiidhi badan uu Trump saaray. Dhinaca kalena marka uu ninkani ka hadlayay arrinta Falastiin, uu isyiri waxaan horey looga hadalba madaxdii ka horreysay ayna sheegin, ayuu isaguna sheegay, uu leeyahay haddii in case if hadday timaado in dowlad Falastiin ay hesho oo maaragtay dowlad loo sameeyo, waa in ay dowladdaasi ay aqbasho, ogolaato, maxaan ku dhahaa, sida Israa'iil ay rabto, sida Israa'iil ay u nooshahay, waxa ay Israa'iil maaragtay systemkeeda iyo policygeeda, hadal caynkaas ah. Marka aan ku soo noqonno, waxaa soo baxay macluumaad sheegaya in dabcan la faafiyey durbaba, aadna aan loo shaacinin. waa waray qaza dadkii la gaajaysiiyey ee la yidhi waktigaa yimaada, in sidii gamekii sniper, waxaa jira game oo caruurta maaragtay Israa'iil ay ku ciyaaraan, halkan maa sawirkiisa idiin soo dhigi. Sidaasoo kale in dadka bait yacnaa wax loo tuuro oo markay usoo cararaan la shuud gareecano. masaakiintii reer Gaza ilaahay subxaana watacaala ha u gargaaro, in la yidhi soo kallaha oo halkaa yimaada. askartii Israa'iil laftigooda ayaa sheegaya, waxaa lanagu dhahay markay meesha yimaadaan shuud gareeyayno. waxay leeyihiin markaan anagu marka aan si u shuud garaynay oo shuudka xataa uunan mararka qaarkood dee ama qofkaa ku dhacda ama ha lagu cararsiiyo, ha cararaane, markay dib u carareen in ay koox kale oo askartii Israa'iil dhinaca kale kasoo baxday toos ay u shuud gareeyeen, u dileen. subxaan allah walciyaadu billah, inna lillahi wa inna raajicuun. Okay, waxaa kaloo subxaan allah naxdin ah in raashinka la qaybinayo Israa'iil ay qaybinaysay la tilmaamayo oo la sheegayo in uu yahay raashin sumaysan, raashin lagu daray kiniino, lagu soo dhex burburiyey kiniino oo qofka maaragtay yacni kiniino ka daran morfiinka maaragtay, oo markaa qofka uu maaragtay noqonayaba dhaandhaano, waxba uuna kala garanayo, dhinac uunu cararayo. marka cidhiidhigaas ayaa jira. ilaahay subxaana watacaala allah u gargaaro. arrintaas lama shaacin, hadday soo baxbaxaysaa. marka waa arrin aad aad iyo aad iyo aad u dhib badan runtii. ilaahay ka badbaadiyo. madaxda Russia ee joogay, maxaan ku dhadayay, sida safiirka Russia jooga UN-ta New York, ayaa ka dhex qayliyey shir qoladan nuclearka saxeexday NTP-da, ay kasoo qayb gashay Israa'iil. markaas wuxuu dhahay kaale, Israa'iil meel kasta meelay ku jirtaa, maxaa dhacay, halkan signatory kama aha, sababta u fadhida ma la sheegi karaa. oo marka uu qayliyey si looga saaro shirkaas, maadaama looga hadlayo arrimaha la xidhiidha nuclearka. marka caalamku runtii waxbaa salag salag leh. ilaahay subxaana watacaala hana xafido, ha idin xafido. halkaa igala socda, subscribe ka dhaha. baaraka allahu fiikum. aad baan idiin salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. fi amaan illah.